تيك توك تيك توك كمدال مياه تيك توك وما أدراك ما تيك توك حاكو برا تيك توك ولي دhanka iyo TikTok ayanu saaranahay oo muuqaalkii kan ka horeeyay ee channelka Muu Fahmi soo galinayna waa anaga ka waranay dhacdo cajaa'ib ah oo ka dhacday TikTok gudaheeda haddaba saaxiibayaal muuqaalkeena maanta kuma saabsana dhacdo ka dhacday gudaha TikTok amba TikToker waalan oo follow-raadis ah oo fallayaab leh ugu kacay sidii uu followers u heli lahaa no muuqaalkeena maanta waxa uu saaran yahay isla TikTok laftirkiisa waxaa laga yaabaa muuqaalkani inaanu qancin ama base uu qalbi jab ku noqdo TikTokeriska walibana kuwooda ugu followerska badan ee waqtiga soo galiyay ee ku soo dadaalay TikTok sidaynu wada ogsoonahay waa mid ka mid ah baraha bulshada kuwooda ugu saameynta badan dhowr sano oo ka hor dadka badankoodu wax TikTok la yiraahdo maba aanay garanayn balse maanta ilmo yar oo naqan hadii aad ku tiraa TikTok ma taqaan TikTok meeshii yareed ma uu ku sheegay توبيت موضوع عن رنتي هذا يودق يا مانتا كوس وتريمي كرا واني قول لي هذا يوتيوب على حرية انت اصلا يوتيوب كسر شقيني او سبسكرايب صار انت اصلا سوهاي او لي هالمر يوتيوب ماركتونتي هاي نو قلبي شاب هذا muuqaalkan gudihiisa saaxiibayaal waxaanu kaga hadli doonaa akhbaarta cajaa'ibka badan ee runtii aad ka gulgishay TikTok ee baryahan internetka aad ka dhex wareegaysa maxaa ka run ah mase dhab ah in TikTok gabi ahaan bahwada laga saari doono maxaase sababi kara ayaa la oran karaa TikTok in gabi ahaanteedaba hawada ay ka baxdo la waayo ambaba se wadamada ugu badan ambaba se isticmaalayaasha ugu badan laga xidho sababaha loogu aaneynayana waynu ka hadli doonaa runtii arrintaas hadday dhacdo ay dhaqan gasho oo TikTok gabi ahaantiisaba la waayo tiiraanyo kal iyo laab ah ayaynu u diraynaa dadka TikTok waqtiga galiyay aadka ugu dadaalay haddii aad TikToker tahay dadkana waxyaabo aad u wanaagsan la wadaagi jiray isla mar ahaantaana arrintan la sheegay ay dhaqan gasho bedel khayr qaba ayaan brother ama sister ku rajeynaya laakiin haddii aad ahay teamka runay shacabka ruux baga dhaqankaas YouTube aan noloo iman please waa ku tuuga sababtoo ah cuquubadaada ayaa sababaya inuu TikTok maanta qiran qeyr kale oo la isweydiiyo suurtagal ma yahay inuu sii jiro iyo YouTube na hadhow yaan laga qayb war hada saaxiibayaal mawduuca toos aan u guda galo waan ka leexdaan mooday toos muuqaalkan ugu socdo hadaba saaxiibayaal muuqaalkan gudihiisa maanta waxaan kaga hadli doonaa TikTok maalmaha soo socda ma la xiri doonaa ma la waayi doonaa maxaa dhici doona waxaas oo dhan ayaan muuqaalkan gudihiisa kaga hadli doonaa iyo waxyaabaha sababta u noqon kara iyo TikTokeriska hadii ay dhacdo inay TikTok hawada hal mar buuf ka waayaan daawooyinka isticmaali lahaayeen qalbigooda iyo maskaxdooda ku dejin lahaayeen ana qoray taas baryahan oo dhan baan diyaarinayay laabkayga diyaar ku tahay baqanina ana haya marka sawka bataan warwarkii iyo murugadi iyo oohintii waxaas oo dhan TikTok ay raaci doonaan ee Dr. Muu Fahmi jooga okay saaxiibayaal hadii aynu ka horeyno maxaa sababi kara in TikTok la waayo ama se isticmaalayaasha qaarkood ay awood u yeelan kari waayaan inay adeegsadaan TikTok waxa soo galiyaan ama se daawash ahaan ba u tagaan okay sidaan wada ogsoonahay horta TikTok waba laga yaabaa inaad hore u ogeyn oo TikTok isaga jirtoone waxa asal ahaan iska leh dalka Shiinaha company ku yaala dalka China ayaa iska leh TikTok okay haddaba maxay tahay sababta aynu u sheegnay wadanka uu ka soo jeedo TikTok sababtu waxay tahay sidaynu badankeenu wada ogsoonnahayba dalka China iyo dalka Mareykanka waxa gudahooda taal xurguf iyo loolan aad u culus oo aad u weyn oo dhinaca ganacsiga waana labada wadan ee la oran karo waqti xaadirkan dunida waa labada ugu turtudharoon dhinaca ganacsiga oo waxyaabaha tiknoolajiyada lightski kamerooyinka iyo telefoonada iyo waxaana isticmaal badankooda waxay u badan yihiin inay soo saaraan shirkado asal ahaan laga leeyahay dalka China iyo dalka Mareykanka taasi ayaa keentay inay ku tartamaan isla mar ahaantaana ay ku culuubaan suuqa ganacsiga ee dunida waa China iyo America okay waa si wanaagsan haday China iyo Mareykan isaystaan inaga macna dhaxgaliyay maxaa anaga naga galay maxay noo saameyn sababta ay noo saameynayna waxay tahay annagii maynanta shan oo wali waxaanu ku tiirsanahay productyada ay badana soo saaraan wadamadaasi horumaray oo maanta telefoonka aad gacanta ku haysatid hadii dalka Mareykanka lagu sameeyay oo Mareykan leeyahay wuxuu awood u leeyahay inuu ku tuso waxyaabaha uu raali ka yahay iyo inuu ka xiro waxyaabaha uu raali ka ahayn hadaba loolankaasi dhinaca dhaqaalaha ah ee u dhaxeeya labadaasi dawladood ayaa keenay inaad marar badan maqashid dalka Mareykanka ayaa mamnuucay badeecooyin lagu soo sameeyay dalka Shiinaha sidoo kale Shiinaha aad tagtid waxaad arkaysaa badeecooyin fara badan dalka Mareykanka asal ahaan laga sameeyay oo laga mamnuucay iimaan la'aan dhaqaalaha adduunka oo dhan bay urursadeen markaasay dhargila yihiin oo isu kaya dul haystaan hadaba TikTok maxaa keenay hadalhayntiisa TikTok waxa keenay waa saan soo sheegayba wax weeyaan aad laga leeyahay dalka Shiinaha taasi oo dunidii saameyn ku yeelatay qirqiir ragalisay
barihii kale bulshada ee dalka Mareykanka laga lahaa. Sababtoo ah fikradda ay la yimaadeen ayaa waxay ahayd fikrad gabi ahaanba ka duwan fikradihii markii hore ay la soo shirtageen shirkadaha dalka Mareykanka iyo shirkadaha kale dunida laga leeyahayba. Taasi oo keentay inay bal isku dayaan inay waxyaabo far badan ay kaga daydaan shirkadan hase ahaatee mar haddii fikradda lagaga horeeyay still way adag tahay weli inaad gaadhid darajada qofkii fikradaasi asal ahaan iska lahaa. Waxaana noqday TikTok applicationka ugu downloadska badan leh muddo kooban gudaheeda weliba. Haddaba maalmahan waxaynu maqlaynaa in shirkadda Apple iyo shirkadda Google ay ku dhawaaqeen inay gabi ahaanba systemkooda ay ka saari doonaan aaladda TikTok. oo awal haddii aad iPhone TikTok ku isticmaali jirtay, haddii qaraarkaasi Apple ay dhaqan geliso isla mar ahaantaana ay ka mamnuucdo aaladahoodaba, awood uma yeelan doontid inaad TikTok حتى عاد كده وتيد هذا استعمالية ايفون. اوكي that is easy إن استرها لقيها. اوكي دي ساعات هاي سامسونج كان اير كاستعمالية حادبة اول بايفون ما بندين سامسونج يا ميلو الببوحة اصلا سوجي دين ايان اسكا استعمالية. نا sidoo kale go'aankaasi lamida waxa ku dhawaaqday shirkadda Google. وهي محنا قال جوجل أنا ما جوجل بيكسل يا حولاس أنا استعمالات تلفونات جوجل ما نجا no ماشي أنا الابليكيشن ده كسود تجسدي تلفون كسامسونج أو سد تلفونات كلا استعمال سيستم كأندرويد. ماشي ابليكيشن ده اللي كسود تجسدي واحد كي وجوجل بلاي ستور يا اسكال دي جوجل باس كلا ماشي كسود تجسدين لايبا هدي اللي جنبه نوع حاجات كسود تجسدين سيستم كده ناي اندرويد تكون استعمال سي ابليكيشن يا حولها هاسيه دي تلفون كبجوزو كعنيي هدي اي ممنوعان تيك توك دي واحد كان ساعدان والبود كمرتيد ان تكون استعماشي dad badan kuwa baraarugsan waxay isleeyihiin dadka iPhone isticmaala oo kaliya ayaa arrintan saameyn doonta dadka xataa telefoonada Samsung ka isticmaala arrintan way saameyn doonta iyo waliba telefoonno kala badan. Haddaba sabaha keenay in shirkadaha dalka Mareykanka ay ka mudaharaan iyo gabaha Mareykanka ay ka xanaaqaan ay ka xumaadaan applicationkan TikTok ayaa waxay tahay dalka Mareykanka oo kaliya dadka ku nool dalka Mareykanka oo kaliya kala badh ayaa telefoonada ku soo dejistay applicationka TikTok. waa hadda dadka ku nool dalka Mareykanka kala badhkood. okay kala dalka Mareykanka markii la qiyaasay dadka ku nool dunida gabi ahaantoodba 17% way soo dejisteen. boqolkiiba 17 ayaa soo dejistay applicationka TikTok. boqolkii qof bini aadam ay aragtida soo taagan 17 kamid ah applicationka TikTok way soo dejisteen waana daawadeen. haddaba sidaas ogeed Mareykanku marar badan waa isku dayay inuu cadaadis saaro shirkadda TikTok in waxyaabo fara badan ku dhibo isku dayaan shirkadaha dalka Mareykanka laga leeyahay inay adeegsadaan fikradaha ay ka horumartay aaladda TikTok balse still TikTok way cararaysaa lama gaarayo dadkii oo dhan bay urursatay. dimaba ahaateen haddii dalka Mareykanka laga leeyahay laakiin dhibta jirta waxa weeyaan wax laga leeyahay dalka Shiinaha oo dhinaca ganacsiga ku tartamayaan. okay sababta kale ee shirkadda TikTok loo eriyanayo oo siiba dalka Mareykanku aad ka u dhibsaday ayaa waxay tahay sabab ku aadan dhinaca ammaanka dhinaca security-ga. haddaba waxyaabaha applicationka TikTok lagu eedeynayo ayaa waxay tahay in ay dawladda Shiinuhu u isticmaaliso qaab qaldan iyagoo isla mar ahaantaana informationka iyo xogaha dadweynaha siiba isticmaalayaasha dalka Mareykanka ay xogahooda si qaldan u isticmaalayaan isla mar ahaantaana ayba dalka Mareykanka kula dagaalamayaan xogaha ay ka urursadeen shacabkooda. haddaba dalka Mareykanku dhawaan ayuu ugu baaqay shirkadda Apple iyo shirkadda Google inay gabi ahaanba systemkooda ay ka tirtiraan aaladda TikTok ayagoo isla mar ahaantaana loo qabtay muddo 3 usbuuc gudaheeda. yes haddii arrintaasi dhaqan gasho dadkii jaajaasi jira dadkii TikTok isku caayin jiray waxaasi oo dhan filinkooda bisad baa cuntay godkoodu biyo ugu soo galay. haddaba arrintaasi hadiiba ay dhacdo oo ay dhaqan gasho oo TikTok aynu awood u yeelan weyno inaan isticmaalno maxay tahay faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka ku jira arrintaasi? bal adiga aan ku weydiiyay ma ku faraxsan tahay in TikTok hawada laga saaro oo gabi ahaanba la waayo? bal xagga hoose commentiga nagula wadaag. haddii aad ka xun tahay sababteeda noo sheeg, haddii aad ku faraxsan tahay sababteeda noo sheeg. aniga dhankayga haddii aan aragtida ka dhiibto anigoo adeegsanaya maskaxda yare maasha Allah dhinac marka la eego waan ku faraxsanahay, dhinac marka la eegana I'm sorry waan ka xumahay. dhibaatooyinka iyo masiibooyinka yaala gudaha TikTok haddii aad u fiirsatid runtii waxaad oranaysaa maxaa mar hore looga tirtiri waayay? waxyaabaha ugu waaweyn in aan runtii u baqo waa caruurta yaryar, waa awlaada yaryar. caruurta yaryar ee waqtigan joogana way adag tahay in TikTok laga ilaaliyo. ilmo yar oo 5 jira 7 jira ayaa telefonkii soo qaadan iska daawanaya TikTok jeetan markaas ugu tagaya waxyaabo aan fariira, waxyaabo maskaxdiisa ka weyn, waxyaabo aan ku habooneen ilmahaasi yar ee sabiga inuu arko isla mar ahaantaana saameyn iyo raad aad u xun ku yeelanaya fikirka ilmahaasi yar, barbaarintiisa iyo dhaqankiisa iyo waxyaabo fara badan oo saameyn ah oo aan la soo koobi karin ayay ilmaha u geysanayaan. sababtoo ilmo yar markuu TikTok sidaas u galo waxa arkaya xabad horta isruuxayso oo dahaysa uu dhaafaya wuxuu ugu tagayaa qof caytamaya oo ku hadlaya
erayo runtii adiga galaftirkaaga hadii aad maqashid dhagaxaga qayla ka baxaysa waxyaabaha TikTok ku fiican yahay waxa la oran karaa waa madal aad si yaro fudud aad caan ku noqon kartid si yaro fudud aad fikradaada dadka uga iibin kartid si yaro fudud hadii aad ganacsada tahay aad waxaaga ugu soo gudbin kartid hadii caanimo raadinaysa aad si yaro fudud aad caan ugu noqon kartid yani marka loo eego baraha kale bulshada aad iyo ugu sahlan tahay in TikTok uu qofku عن كل نقطة هذا برينتان هدي دعوة أو تيك توك هذا اللي قصاره يا فائدية هرت أنك كشعب هان هرت مصيبتها سي أو تيك توك إنه قرر يبي وأذكتها إن اللي واجب هانتي هذا أو سببته ولي أفكارتي سي أيها براها كلام بولشدة كجيرته هذا بعد أنا صار نقطة فائدوينك هو وين يا كوكبة إن تيك توك هذا اللي قصاره وحا كوكبة فائدوينك هو وين شركتها dalka Mareykanka sida baraha bulshada sida Facebook, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube gebigooduba saaran Snapchat hadii aan soo qaato bariga hore waxa la soo gelin jiray story yar yar oo gaagaaban oo xoogay saalo dhaafan jiray laakiin waqti xaadirkan fikradda TikTok ee ah in saa loo dhaafiyo muuqaalada kor loo dhaafiyo ayay qaateen ayadoo isla mar ahaantan fikradaasi ay aad u shaqeysay fikradaasi ay in muuqaalada kooban sidaasi loo dhaafiyo waxa la ogaaday inay tahay fikradda ugu muhiimsan ee TikTok sababtoo ah in horumarkaasi gaadho taasi oo keentay in dhammaan barahaasi bulshada ay kaga taydaan YouTube wada arkaysa isla tabtaasi ay u imka adeegsadaayo muuqaalada kooban waxa jira oo sidaasi loo dhaafiyo oo YouTube Shorts sidoo kale Instagram sidoo kale Facebook intaasiba TikTok waa ay kaga taydeen daawadayaal fiicanna waa ay heleen laakiin wali ma ana gaadhin درجة TikTok وكله. سداسة وجد هدي TikTok هو ده اللي جساره استعمالياشي TikTok بدن كوده بلكي TikTok وش كده حوريه جري وقتها كل من جري ده داون جري شركة لها سكله أي وجري دوران داودياش ودونه كور أيوة كعدونتا أو حتى أنا كيوتيوبر سهان مقالدين كوركا أيا كوي من دونا أو تلكي TikTok نيجا مشغولين جري حقين أيا من دونا وتسحب يا الجنتي جبدي مقال كان أيا نسوق قرني مقال كان تلك شوف فضلا لايك تكو عسوم لايك صار صدق كله هدي تكو عسوم تاجنا كده وينها كوسو برو سبسكرايب صار صدق كلام أركت هذا نقرب بخلنا حاجة وسيكو بنتيجي نقول لو ذاك أيا ما سنت دعواشة أنت إنه مقال كحاجة سيكو من دونا بقى واحد كده يا سداسي أمانة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. It is what it is. Okay, my day is so far good, mashallah, alhamdulillah. How about you? Bruh, you really good right now?